هي كينية دول قريبة لا دحمر iyo togag la maraayo yaa wuxuu tusay lafadad badan oo dhintay waxa uu ku yiri intaasoo aadama ah aniga ayaa dilay waxaana u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiigaagaba banaysto wuxuu ku yiri maalka iska qaado laakiin dhiigayga ii badbaadi awlaadayda iyo ehelkayga aanu noqdo hooyadayba kaligay dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aad u calacalay xukuuri inta aan dilayba hadal fiican way yiraahdeen qofna sakama maqal waxa uu yiri waxaan ku yiri war afar rakacadood intaan tukanayo ma ii kaadin kartaa mar hadaad dilayso markaas wuxuu yiri waxa tukataa inta aad rabto waxa uu waxaan bilaabay salaad waxaan isku dhaxwaday ducooyin iyo aayad quraan oo qalbigayga ku soo dhacaysay aayada quraanki waxay amman yujibul mudarra idha da'aa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'a Allah ayada qalbigayga ku soo noqnoqonaysay ducaduna waxay ahayd yaa waduud ya dhul arsh al-majid ya fa'al lima yurid ducooyinkaas ayu akhriyay aghithni ya mughith wa aghithni bi ku'al ali ducada markuu akhriyay ya rakacadihiisa ku dhex jiray ya wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayo dhaqso ayuu lahaa wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jaleecay oo dhinaca fiiriyay isageena salaadii intuu ka baxay buu fiiriyay dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo toga dhinaca hoose ka soo socda waran ololayana gacanta ku wata ninkii ayaa ku dhuftay markaas uu ninkii dilay waa weydiiyay wuxuu ku yiri ilaah baan kugu dhaariyay yaa tahay wuxuu yiri anigu malag baanahay u xil saaran amman yujibul mudarra idha da'aahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard anigu dadka mudariinta wadooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiyo inay ilaahay u noqdaan kuwaas anigu iska rabtaagaa buu dabeedna wuxuu yiri yaa muqiith waqifni marka lahayd albaabka koobaad ee samada gariiray markaas samadana lagu garaacayo garaacidii ka fadhii weynay buu yiri markaas aniga la soo diray inaan adiga ku kaalmeeyo waaniga ku kaalmeeyay buu miyaan orod yara mar hadaan inta kugu soo ajiiban koobo imid walaal waxaan ku leeyahay kuma amraya waxaan ka dalbayaa sin xariisa shariidka kooban oo aayadaha quraanka iyo xadiiska iyo qisaska islaamiga ku duuban yihiin cid aad gaarsiin karto dhan gaarsi inta kuugu jirto dhan la sheer garay